رمضان مبارك وعنده وديال من البعض عالم كجوكتان كسر هذا برنامج كإني ورك إيش استردون كو أنو ما أنت كوفا قدي دونه وركي وجودن بيه كوسابسن سومالد إيو عالم كبا كينيا أو سوماليا كتل مانتي دتك أو كيني كيساسك أو بدن عذرك كورونا فيروس بوليس كميلانو أو باريتان كوب باللاوي هنجبات دل أو كسعته سيلفيا رومانو شقالها أقل كعادة مريكان كو أمر حوجن للدول دقي سببته محيطاي waxaa aad looga soo dayrinayaa xaaladda 800 qof oo Soomaali ah oo Sacuudigu ku soo daadiyay xadka Yemen iyo Sacuudiga kooxda midigta fog oo dood kulul ka keenay soo furashadii Silvia Romano kuna eedeeyay in ay saaxiib la tahay argagixisada askartii ugu badnayd ee maamulka Puntland ka tirsan oo hub culus la goosatay qodobada iyo kuwa kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijkeena wararka isha sirdoonka waxaa Talyaaniga ku noqday samafale Silvia Romano oo ka tirsaneeday hay'adda khayriga ee samafalka ee African Milele oo 18 bilood gacanta ay ku haayeen afduubayaal la sheegay in ay lacag ka qaateen yeelkadeeda gabadhan 25 jirka ah ayaa sheegtay in ay qaadatay diinta Islaamka taasoo arrin durba dood ka dhalisay Talyaaniga iyadoo ay gaar ahaan nudayaan kooxda midigta fog ee Islaamka nacab kuwaasoo durba sheegay in ay qabto xanuunka Stockholm syndrome oo qofku jacayl u qaadayo cadawgiisa ama qofkii dhibayay waxa ololahan gacan ka geysanaya saxaafadda Talyaaniga oo xitaa sirdoonka Turkiga ee MIT ku eedeeyay in ay Talyaaniga ku qalqaalisay in ay madax furasho bixiyaan wariyaha warqaadka midigta fog ee Libero Victoria ayaa soo Twitter gariyay in ay dawladda Talyaanigu soo deynteeda ku maalgelisay argagixisada magdhowda Silvia laga bixiyay waxay ka dhigan tahay in la maalgeliyay argagixisada hadda iyada ayaa saaxiib la ah howlgal fiican ayuu soo qoray waxa ka qayb qaatay maareeyaha wargeyska Giornale Alessandro Silvia waa soo noqotay balse waxay la timid sida maxbuus ka soo baxay xirooyinkii Yuhuudda oo lebisan sidii Naansiga abidkay fahmi maayo ayuu soo Twitter gareeyay Silvia oo maalintii Axadda gegida Roma uu ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Master Conte ayaa sheegtay inay qaadatay diinta Islaamka iyadoo aan cidi ku qasbin saxaafadda dalka Talyaaniga ayaa warar kala duwan ka soo saaraysa hadallada khuseeya gabadhan la sii daayay kuwaasoo xitaa ku ilaabay la dagaalankii cudurka corona aynu warbixinta inta kaga gudubnay iminkana Kenya oo Soomaaliya ku tilmaantay dalka keenay kiisaska ugu badan ee cudurka coronavirus Kenya ayaa soo saartay liiska dalalka ay uga yimaadeen kiisaska ugu badan ee caabuqa coronavirus waxayna Soomaaliya u calaamadaysay lambarka koowaad dhanka Afrika Soomaaliya ayay sheegtay in ay mas'uul ka tahay 13 kiis oo Kenya laga helay balse ka yimid Soomaaliya marka la eego 17 dal oo Afrikaan ah oo uu Kenya cudurku ka soo galay waxa Soomaaliya ku xiga Tanzania oo 11 kiis ka yimid iyo Ethiopia oo 2 kiis ah South Sudan iyo Uganda waa min hal kiis dhanka kiisaska Afrika ka baxsan waxa kaalinta koowaad kaga jira Imaaraadka Carabta oo Kenya soo galiyay 47 kiis kadib Mareykanka oo 15 kiis ah halka Shiinaha oo cudurkan dhamiba ka soo bilowday ay Kenya sheegtay in ay kiisas ka soo galeen si kastaba Uganda ayaa 7 bishan 18 darawal oo Kenyan ah ay ka heshay cudurka coronavirus Kenya ayaad moodaa in ay xanuunka coronavirus siyaasadeynayso tan oo ay uga gol leedahay in ay shacabkeeda ku kiciso si ay Soomaaliya cadow ugu arkaan aynu warbixintan kaga gudubna intaasi warbixinteena kale ay noo haray aynu si anba qaadno warfaafinta Xuutiyiinta Yemen ayaa shalay baahiyay warar sheegaya in 800 oo qof oo Soomaali ah uu Sacuudigu ku soo daadiyay xadka ay la leeyihiin dalka Yemen gaar ahaan Al-Jawf iyaga oo ku sugnaa xaalad aad u liidata saxaafadda Xuutiyiinta Yemen ayaa Sacuudiga ku eedeysay in uu ku tumanayo xuquuqda insaanka iyagoo inta raaciyay in uu maalmihii tagay halkaasi ku daabulayay dad Afrikaan ah oo aad u silicsan afayeen u hadlay ciidamada gaashaanbuurta Sacuudiga Turki Al-Maliki ayaa warkaasi beeniyay isagoona sheegay in aysan waxba ka jirin wararka sheegaya in ay xadka ku daadiyeen 800 oo qof oo Soomaali ah Al-Maliki ayaa isagana dhankiisa ku eedeeyay Xuutiyiinta Yemen in ay si insaanka ka baxsan ula dhaqmeen Afrikaanka soo galootiga ee ku sugan dalka Yemen si kastaba ha ahaatee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa loo soo jeediyay in ay arintan baaritaan ku samayso mana ahan mid la dhayalsan karo maadaama Sacuudigu ku caanbaxay xasuuqa iyo baabi'inta shacabka aan waxba galabsan ee dalka Yemen aynu yara milicsano iminkana dalka Mareykanka
shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka ayaa waxaa lagu amray inay xirtaan qalabka sanka iyo afka lagu duubtay ee maaskarada loo yaqaano marka ay soo galayaan qaybta loo yaqaano West Wing. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii labo ka mid ah saraakiisha aqalka cad laga helay xanuunka coronavirus. Sarkaalka ugu sarreeya shaqaalaha aqalka cad ayaana sheegay in ay qasab tahay in ay shaqaalaha afka duubtaan xilli waliba marka ay shaqada ku jiraan. Amarkan ayaa ka dambeeyay kadib markii mid ka mid ah kaaliyaasha madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence iyo sarkaal aad ugu dhow madaxweynaha cudurka laga helay. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in xeerkan cusub loo baahnaa. 3 xubnood oo ka mid ah guddiga xakamaynta corona ayaa iskarantiilay muddo 2 toddobaad ah kadib markii ay la macaamileen shakhsiyaad cudurka laga helay. Waxaa dadka iskarantiilay ka mid ah Dr. Fauci oo isagu noqday wajiga dagaalka Mareykanka uu kula jiro cudurka coronavirus. Sida ay sheegayaan wararka askar ka tirsan ciidanka daraawiishta Puntland ee ku sugan deegaanka Af-Urur ee gobolka Bari ayaa la sheegay in ay la goosteen hubkoodii kadib markii ay si dhow Malaysia kaga baxsadeen fariisimaha ciidamada. Askartaas oo ka mid ah ciidan dhawaan tababar loogu soo xiray xerada Xorgoble ee magaalada Qardho kadibna la geeyay deegaanka Af-Urur ayaa habeen ka hor halkaasi kala baxsaday dhammaan hubka ay wateen oo u badnaa qoryaha fudud ee AK47. Ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in askarta hubkaasi la goosatay ay u baxsadeen dhinaca gobolka Sanaag isla markaana ay doonayeen in ay dib u iibsadaan hubka iyo rasaasta ay wateen. Dhinaca kale taliyaha ciidanka daraawiishta maamulka Puntland General Ismaaciil Cumar Dheere oo haatan ku sugan magaalada Baran ee gobolka Sanaag ayaa amar ku bixiyay in si degdeg ah loo soo qabto askartii hubkaasi la baxsatay. Nin ka tirsan golaha deegaanka Oslo Treviso Nico Basso oo ka tirsan kooxda cunsuriga ah ee Verso il Futuro ama xagga mustaqbalka horeyna uga tirsanaa xisbiga midigta ah ee Leeganood ku metela magaalada Treviso ayaa soo qoray hala daldalo. Ninkan ayaa markiiba tiray fariinta uu soo dhigay Facebook iyada oo ay weheliyaan aflagaadooyin iyo fariimo nacayb ah oo ka dhan ah Silvia Romano oo 18 bilood lagu haystay Soomaaliya taasoo sheegtay in ay islaamka qaadatay iyadoo aan lagu qasbin. Booliska Milano ayaa iminka kiiskan hanjabaada ah baaritaan rasmi ah ku bilaabay sida uu sheegay madaxa qaybta la dagaalanka argagixisada Alberto Nobili. Silvia Romano oo 20 November sanadkii 2018 laga afduubtay dalkani Kenya ayaa dalkeeda ka wajahaysa olole nacayb ah oo ka dhashay sheegashadeedii inay qaadatay diinta Islaamka taas oo kaga imaanaysa dadka muxaafidka ah iyo kuwa kooxda midigta fog. Kadib fariimo aflagaado ah oo loo marinayay baraha bulshada waxaa sidoo kale la sheegay in warqad hanjabaad ah laga helay meel u dhow guriga ay gabadhani degan tahay. Booliiska Milano oo meesha ay ku nooshahay Silvia ayaa iminka bilaabay in ay si gaar ah u ilaaliyaan xaafadda Casoreto oo ay Milano ka degan tahay iyada oo gawaarida hormaraysa dhismayaasha xaafadaasi la faray in ay si tartiib ah u socdaan. Silvia Romano ayaana iminka u muuqanaysa in gudaha wadanka Talyaaniga ay kaga khatar badan tahay afduubkii Soomaaliya loogu haystay. Iminkan aynu si anba qaadna qaybaha ugu dambeeya ee wararkeena. Qatar ayaa door firfircoon ku lahayd soo badbaadinta Silvia Romano haweeneydii arrimaha samafalka ka shaqeynaysay ee 18 bilood u afduubnayd Al-Shabaab sida uu baahiyay telefishinka maxalliga ah ee TG24. sida ku xusan warbaahinta TV-ga xukuumadda Dooxa ayaa hogaaminaysay wadaxaajoodyadii ugu dambeeyay ee lagu bixiyay lacagta madax furashada ah oo warbaahinta Talyaanigu ay ku sheegtay $3 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Qatar ayaa xiriiro muhiim ah la leh xoogaga gacansaarka la leh shabakada argagixisada ee Al-Qaacida ayaa lagu yiri nuqul ka mid ah warbixinta uu sii daayay telefishinka TG24 ayaana ku tilmaamay wadanka Carbeed ee Qatar meesha ay ka bilowdeen wada hadallada bixinta lacagta madax furashada ah. Tan ayaa ka dhigan sii deynta Romano iska kaashadeen dowladaha Soomaaliya, Turkiga, Talyaaniga iyo Qatar oo la soo shaac bixiyay. Marka laga reebo Qatar, 3 dowladood ee kale ayaa muuqanaysa in ay qaabilsanayeen howlgallada dhanka khubarada ah. Dhammaan xaqiiqooyinka soo ifbaxaya ee ku saabsan in ay dib u heshay xorriyadeeda Romano waxay ku kooban yihiin saxaafadda oo soo xiganaysa ilo wareedyo kala duwan. xukuumadda weli kama aysan jawaabin. Silvia Romano oo bishii November ee sanadkii 2018 laga afduubtay tuulo u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya ayaa madax u ah hay'ad ka shaqeysa arrimaha bini'aadanimada oo si weyn uga howlgasha qaaradda Afrika. Qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeennii wararka isha sirdoonka oo aanu maanta ku falanqeynaynay guud ahaan caalamka iyo Soomaalidaba. Tan intaan warkaan warka xiga dib ugu kulmi doono. Nabadgelyo.